السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal, maanta waxaan dhiganaynaa le phrase les belize utilisées en français partie numéro 10. waxaan dhiganaynaa farasadii aadka loo isticmaal badan yahay qaybtii tobnaad ayaan dhiganaynaa maanta. Kusoo dhawaada. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Sidee tahay? Comment allez-vous? Sidee tahay? Je vais bien, waan fiicanahay. Je vais bien, waan fiicanahay. Je vais bien, waan fiicanahay. Et vous, adiguna? Et vous, adiguna? Merci, mahadsanid. Merci, mahadsanid. De rien, adaa mudan. De rien, adaa mudan. S'il te plaît, s'il vous plaît, s'il te plaît, ama s'il vous plaît maxay ka dhigan tahay fadlan, please weyn. S'il te plaît, iyo s'il vous plaît, ama s'il te plaît baa odhan kartaa, ama s'il vous plaît baa odhan kartaa oo ah fadlan weeyaan. Situation informelle et informelle bay kala yihiin. S'il te plaît iyo s'il vous plaît. Je suis désolé, waan ka xumahay. Je suis désolé waa maxay? Waan ka xumahay. Je suis navré baa lamid ah, waan ka xumahay. Je suis désolé waxaa lamid ah je suis navré oo ah waan ka xumahay. Enchanté, waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo markaad ka leedahay enchanté de vous rencontrer, ou bien enchanté de faire votre connaissance. waan ku faraxsanahay inaan ku barto markaad ka leedahay enchanté. waxaad leedahay qofka markaad baranaysid baa la isticmaalaa. waan ku faraxsanahay bay ka dhigan tahay Soomaali. Comment t'appelles-tu? magaca. Comment t'appelles-tu? magaca. inta qayb ee la isku weydiiyo qofka magacaan laga leeyahay oo soo aragnaan maleynayaa. Comment t'appelles-tu? maxay? waa magaca. Quel ton nom la mid ah magaca. Comment t'appelles-tu? magaca weeyaan. Je m'appelle magacaygu waa. Je m'appelle magacaygu waa. ama mon nom est waa odhan kartaa magacaygu waa isku mid. Je m'appelle magacaygu waa magacaaga baa sheegay markaa. Bonjour, subax wanaagsan. Bonjour waa subax wanaagsan bay ka dhigan tahay. qof salaam markaa salaamaysid isku rimatidna bonjour baa odhan kartaa. qofka garanaysid ama qofka garanayba bonjour waa odhan kartaa. nabad weeyaan. subax wanaagsan way noqotaa. Bonsoir waxaa loo isticmaalaa fiidka habeenkii. Good evening weeyaan English oo kale. kolkaa waa fiidka wanaagsan. fiid wanaagsan markaad leedahay bonsoir weeyaan. fiid wanaagsan xilliga meelaha galabtii maqribkii meelaha baa la isticmaalaa. Bonsoir waa maxay? fiid wanaagsan. Bonsoir maxay? waa fiid wanaagsan. Bonne nuit waa habeen wanaagsan. Bonne nuit waa maxay? waa habeen wanaagsan bay ka dhigan tahay. Au revoir waa maxay? waa nabadgelyo. Au revoir waa maxay? waa nabadgelyo. markaad qof kala tegaysiin baa la isticmaalaa. Au revoir waa nabadgelyo, ama waa bye bye Englishna bye bye weeyaan. waa nabadgelyo. À bientôt weeyadna waa nabadgelyo oo lamid uun, laakiin bientôt quradan macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa ayoon bay noqotaa. marka nabadgelyona way noqotaa, ayoonna way noqotaa. kelmadda kale ku xigta adema inuu barin waxa faqalada adema weeyaan. adema waxaad kala soconaysiin. adema baad ka qof waa inuu bari. dema quradi la macnaheena waa bari. kelmadda kale ku xigta tu me manques. tu me manques waan ku xiisay. tu me manques waa maxay? waan ku xiisay. tu me manques waan ku xiisay. moi aussi anaguna waan ku xiisay. markaa tu me manques markaa qofku moi aussi anaguna waan ku xiisay kale. moi aussi aniguba. Bienvenue soo dhawow. Bienvenue waa maxay? waa welcome. soo dhawow. Bienvenue waa maxay? waa soo dhawow. Bonne chance nasiib wanaagsan. Bonne chance waa maxay? waa nasiib wanaagsan. chance nasiibka dhada. bontuna waa wanaagsan. kolkaa bonne chance waa nasiib wanaagsan Soomaali. kelmadda kale ku xigta bonne année oo ah sanad wanaagsan. bonne année waa maxay? waa sanad wanaagsan. intaa baan ku joojinaynaa maanta le phrase les belize utilisées en français. intaa baan ku joojinaynaa. insha Allah dadna ku cusubtiin ay loobina inaad subscribe saartiin. isku day ugu yaraan inaad ifaafishanka oo qof kale saaxiibka ama qof kale u baahan oo doonaya inuu barto luqadda Faransiiska si uu uga faa'iideysto. insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.